السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وهريالك شعبك يوتيوب اسكو سو نقد وناكسن كلن كلا او xiiso leh muddo waan kala maqnayn laakiin iminka ayaan dib u soo noqday. maanta muuqaalkayga waxa uu ku saabsan yahay oo aan diiradda ku saari doonaa cuntada ay ilmaha ka cunaan kindergartenka ama iskuul. daba qaabka ay ilmaha cuntada ay u cunaan, qaabka ay u gataan ayaan muuqaalkan uga hadli doonaa. cuntada maxay ka kooban tahay ay ilmuhu iskuulka ama kindergartenka ay markaasi ka cunaan. muuqaalka ayaan ku faahfaahin doonaa. haddii aad tahay aabba ama hooyo Soomaaliyeed aad tahay, muuqaalkan wuu ku anfici doonaa, waxaana ka faa'iidi doontaa haddii ay ilmahaagu kindergarten ku bilaabayaan ama ay kindergarten ba aadaan, iyo sidoo kale ilmaha hadday iskuulka aadaan qaab nooca ah ayay cuntada markaasi ay iskuulka ama kindergartenka uga cunaan. muuqaalka ayaan ku faaqidi doonaa. kusoo dhawaado qaybta labaad oo faahfaahsan muuqaalka. xanaanooyinka ilmaha markii la geeyo oo ugu horeysa ay bilaabaan waxay ka cunaan halkaasi qado oo laga siiyaa. kindergarten walba ama xanaanooyinku waxay leeyihiin maqaaxi markaasi loogu talagalay ilmaha inay midtaag eesan ay ka cunaan, waa qadada ay ka cunaan. haddii hadda ay kugu horeyso ilmahaagu inay bilaabaan xanaano, waxaa sameysaa quraacda kasii guriga oo ha u qaataan kindergartenka. markaa halkaa uu cunugu tago, si wadajir ah ayay ilmahoo dhan ay u wada fariisanayaan, qof walba iyo quraacdiisa ayaana ilmaha loo hordhigayaa. waxaana laga rabaa cunug walba inuu kaligiis uu qadada quraacdiisa uu cuno. marka waxaa jirta qadada ilmaha waa qasab in ay kindergartenka ama xanaanada ay ilmuhu ka qadeeyaan, waa qasab taas. qadada sida caadiga ilmaha waxay ka qadeeyaan xanaanada. marka waxaa laga rabaa waxay tahay xanaanada ilmaha markay ka qadeynayaan inaad ogaatid ilmahaaga cuntada ay cunayaan oo aanad la socotid, oo aad badanaa waxaa sii fiican inaad sheegtid oo dhahda ilmahayga cuntada noocaas ayay jecel yihiin inay cunaan, si markaa ilmahaaga qadada loogu talagalo oo markaa qof walba iyo cuntada uu ilmihiisa u dalbo ayaa markaasi loo keenaa. oo ogow in adiga ay kugu xiran tahay dalabka cunada uu ilmahaagu cuno, marka adaa laga rabaa inaad u dalabtid. taa markaa waa kindergartenka. waxaad ogaataa in ilmaha kindergartenku ay ka qadeeyaan. marka midda iskuulka ayaa soo hartay. midda iskuulka ayaa xoogaa ka tiro badan midda xanaanada, sababtoo ah midda xanaanada ilmuhu way yar yihiin. qarashka lacagta qadada ku baxaysana waxaa laga yaabaa in qolooyinka ishtaadka ama dowladdu ay haddii aad shaqaysid ay adiga kaa jirtaan oo akoonkaaga si automatic ay uga bixiyaan lacagtaas, si markaa lacagtaasi ay ilmaha qado loogu siiyo. laakiin iskuulka ayaa kugu soo hartay. ilmaha markaa iskuulka dhigta waxay u baahan yihiin quraac iyo qado. marka waxay ku kala duwan yihiin. ilmana quraacda guriga laga siiyaa oo qadada iskuulka ayay ka cunaan. ilmana qadada iyo quraacdaba iskuulkay markaa ay ka cunaan. marka iskuulkay ka cunaan markaan ku leeyahay, iskuulka waxa ku dhex yaala maqaaxi ama restaurant ayaa ku dhex yaala. taas ayay markaa ilmaha ay quraacda iyo qadada ay ka cunaan. marka quraacda iyo qadada qaabka noocay ayay markaasi ay u cuni karaan. ilmaha badankood waxaa loo sameeyaa waxay tahay bahalkan ayaa loo sameeyaa, waxaana yiraahdaa jiibkan ay ilmaha badankood ay iskuulada maqaaxiyada ku yaala ay wax uga iibsadaan, haddii ay noqoto subaxdii quraacda ama qadada hadday noqoto. haddaba jiibkan waa noocaan buu u dhigan yahay, waa qaab noocaan marka waa sida bangiga camal. wuxuu leeyahay lambar loogu talagalay oo bangi account ayuu leeyahay, magac ayaa ku qoran. marka waxaa laga rabaa waxay tahay qofka inuu bangigaas akoonka ah ee markaasi uu leeyahay jiibkan uu qofku lacag ku shubo, sida kaararka caadiga lacagaha lagu shubo ama isbarkaasahoo kale ama Deutsche Bank, adigu midku noqdaba waa bangi camal. marka kaarkaas lambarkaas ayaad lacagta ku diraysaa automatic. markaa qolooyinka kaararkan bixiya ayaa lacagtiisa ku shubay, kan ayay lacagta ku jirtaa. marka ilmuhu wuu baxayaa iskuulka. markii uu tago xilliga quraacda loo daayo kale, maqaaxida wuxuu tagayaa ku dhex taalla iskuulka,
wuxuu rabo soo qaadanaya subaxdii oo kale haday rooti noqoto hadii waxyaabaha markaas meesha maqaaxida lagu iibiyo ayuu soo qaadanaya marka waxa jira meel kaasaha ah oo wax laga iibsado ayaa jirta halkaas uu tagaya computer ayaa yaala saasoo markaa baalkan u saaraya meesha sida markuu u saarayo automatic qolooyinka kaasaha ee markaas maqaaxida automatic lacagta way goosanaya oo way ka jaranaya sidoo kale qadadoo kale ilmaha markay ay maqaaxida imaanayaan oo rabaan inay ka qadayaan kale way soo galayaan kaarkan ayay sidaas u saarayaan lacagtana asaga ayaa laga goosanaya marka waa wax automatic la iskugu talagala waa anagu waxaan naqaanaa badanaa kaararkeenan caadiga aan dukaanada iyo meel walba wax uga gadano laakiin kan way leeyihiin oo badanaa ardayda ayaa wax ku cunta ardayda ayaan wax ku iibsata macnaha marka ha noqdaan ardayda jaamacadaha iyo kuwa iskuulada kale ha noqdaan marka ogow kaarkan inaad mar walba aad ka taxadirtid ilmahaaga hadduu kaarkan leeyahay waxaa laga rabaa waxay tahay in aad kaarkan badanaa lacagtiisa aad ilaalisid sababtoo ah quraacda iyo qadada way kala duwan tahay badanaa ilmaha qadada waxa ka bixisa dowladda waxa laga yaabaa hadii aad shaqaysid sidoo kale lacagta qayb in aad adiga bixisid qaybna ay dowladdu bixiso marka automatic qadada waa laga goosanaya lacagta kaarkan waa laga goosanaya automatic qadada laakiin quraacda marka quraacda waxa laga rabaa adiga waalidka inaad lacagteeda aad bixisid oo kaarkan aad ku shubtid marka kaarkan waxa laga yaabaa ilmaha subaxda quraacdo kale markuu maqaaxida tago kale hadii uu saaro kale hadii aysan lacag ku jirin inuu yiraahdo lacag kuma jirto laakiin hadii uu duhurkii soo noqdo uu yiraahdo waa ku qadeynaya oo meesha qadada uu soo galayo kale maqaaxida uu saaro lacagta waa laga goosanaya marka waxa farqigaas wuxuu yahay lacagta quraacda iyo tan qadada isku mid ma ah tan qadada badanaa dowladda ayaa bixiso oo automatic kaarka way ku jirtaa marka isku ma darsana marka lacagta quraacdana waa gaar ee ku jirta kaarkan ilmaha ugu jira ee macnaha kaarka ku jirta lacagta qadaduna waa gaar marka isku ma darsana marka tan quraacda adiga waalidka ayaa laga rabaa kaarka inaad ogaatid kaarka wuxuu leeyahay qof walba username iyo password ayuu leeyahay waalid walba wuu haystaa passwordkaas iyo userkaas website ay leeyihiin jira ayaad ku qoraysaa automatic wuxuu ku soo saarayaa ilmahaaga magacooda xilligay dhasheen iyo lacagta kugu jirta ayuu automatic ku soo saarayaa marka waalidiinta waxa muhiim ah waxay tahay in kaarkan ay badanaa ilmaha uga taxadiraan sababtoo ah ilmaha markii uu iskuulku joogo kale oo uu quraacdi doonto kale waa qof fasal ku jiro baahan waa dareemi kartaa anaga markaan iskuulka dugsi quraanka dhigan jirnoo kale markii uu tago maqaaxidii kale hadii uu saaro lacag aysan ku jirin runtii dhibaatay ku tahay aniga tusaalo kale aniga maqaaxidaas ayaaba ka shaqeeya maqaaxi waxaan ka shaqeeyaa iskuulka ku dhaxtaa loo ardaydu wax ka cunaan badanaa waa la kulma dhacdooyin kala duwan baa la kulma marka kaarkan ugu sidaas uga warqab hadaad waalid tahay oo horey aad u ogeed waaba garanaysaa hadii aad horey u ogeedna lacagta kaarkan ilaali oo mar walba lacagtiisa ku shub hadii aad hadda aad la kulmi doontid oo ilmo ay ku joogaan waxa laga rabaa inaad ogaad laba qaab oo aad sameyn kartid ayaa jirta hadii aad waalid tahay oo ilmahaagu ay iskuulka ku dhigtaan siiba ilmuhu hadday leeyihiin kaarkan hadaa ratid ilmaha subaxdii quraacda waxaad siin kartaa lacag kaash hadii kale waxaad ugu shubi kartaa kaarkan oo ay ilmuhu ku iibsanayaan marka kaarkan marka sirta ku jirta ayaan kuu sheegay kaarkan hadii aad lacagta iskaga shubtid waxa laga yaabaa ilmaha markii iskuulka uu tago kale inuu 3 cunug ama 4 cunug oo ay saaxiibayeen oo kale inta soo raacaan ay dhahaan adi lacagta naga bixi oo markaas laga yaabo halkii mar ee quraacda asaga waxa laga yaabaa 1 euro ama 2 euro inuu wax ku iibsado laakiin saaxiibadiis ugu yaraan 10 euro wax ugu iibiyo marka hadaa rabtid xataa kaarka waxaad u sameyn kartaa limit loogu talagalay oo waxa dhici karta tusaale kale subaxdii quraacda cunugayga wuxuu wax ku cuni karaa 2 euro ama 3 euro waa 3 euro ka badan hadii uu soo qaato saaro uu ka diidaya laakiin 3 euro wax ka yar ama 3 euro hadii uu alaab joogto uu soo gato ama rooti ama waxyaabo kala duwan ama cabitaan joogto soo gato kale uu ka yeelaya marka kaarkan badanaa limit iskaga sameey waa ku muhiim si ilmaha uu aysan qofkay arkaba wax ugu iibin waa ku muhiim sidoo kale quraacda hadaad rabtid lacagtiisa kan ugu shub hadaad rabtidna kaas u sheeg kaash waa u siin kartaa oo waxaad dhihi kartaa iskuulka wax uga gado intaas ayaa muuqaalka ku soo koobayaa intaan muuqaalo kale ku kulmi doono waxaad ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo